guurka fududeeya afar ogolaada Soomaaliya u hiiliya wiilka dhashay Soomaaliya u dhashay waxaan soo banaan dareenkayga cashan inaan Itoobiya aysan badayna qaadan oonan ogolayn Soomaaliland ay kamid tahay wadan Soomaaliya ku yaala ay kamid tahay aysan diibina karin saasan soo banaan marka maqashay badada 20 qayb kale la kireystay Itoobiya laga kireeyay maanta والله شعورتي هذا هواdan galay xala ma jiifan xala dhan waa gaardinay indheega ku soo jeeda nano hantidayna Soomaaliya Itoobiya qaada ma karto dad Soomaaliyeed nahay dad qadiyad lahaanahay dad jiraan nahay ma ogolin Itoobiya inay qaadato xayay badeen ragga Soomaaliyeed waxay leeyihiin Itoobiya waa 120 milyan waaye way naga badan yihiin raggi waxay leeyihiin waxa jeclaan lahayn in dumarka afar loo guursado si loo badiyo taa ka waran والله هديبة إثيوبيا يران يعني بدل نوقع هذا ليس وحنا لا يا فرافر يو كبلا بجورسده هديب ينتو يديب أنا ليس أفر تبى جورسده الله يا هديبة إثيوبيا ما أنت ترى يكون هذا ليس وطن كينا أفرافر وجورسده سيدا نساعد علينا وطن بدل نجا وطن بدل على ذا رجوا على جورك دمك على جورك على فضايا جورك فضايا أفرافر أفر ترى ضلالة Soomaaliya u hiiliya wiilka dhashay Soomaaliya u dhashay diyaar ma tahay maanta in lagu guursado oo dadku ay bataan Itoobiya in dabcan laga diyaar ma tahay ha diyaaran waa inuu ninkayga ugu yaraan 50 nin oo dhalo si Itoobiya saaga celino waa gartay maanta Itoobiya waxay leedahay badii Soomaaliya haysta iyagu way dibaal degayaan shacabka Soomaaliya maxaa la gudboon shacabka Soomaaliya waxa la gudboon inay u midoobaan inay cadawga mid ka noqdaan tafaraaruqa iska dhaafaan Soomaaliya mid waaye Soomaaliya ma kala goyn ووطن مده هل مدحويني لا دول حسن شيخ محمود وإني مدودا صومالي دل حورة واحد دل وعيتين اسمها دولة كلا قبسة كردما وطن حورة عنا إسلام صومالية وعلن كذي عيد القبطة عيد إذا علن كذي قلب بحيان ما أقول مركب بدل لقاب بحيو بريقنا والله بحينا صومالي قد تودوا تنكير بانا ما فهمنيسا أنا أمهار والتوضواتن iyo todobadii ayaan dagaalka wax ka jiray may maqlaysa anoo gabar yar ah ayaan dagaalkaas ku jiray haddana diyaar baan u ahay inaan qoriga qaato anoo 70 jir ah ayaan qoriga u qaadan Soomaali fahmay 70 jir diyaar ma tahay dagaalkan diyaar waay qorigayga wataa qoriga wiilkayga ka dhintay waa wataa ما فهمتي ديارة هو الحركة واسنا قارنا ميتك وحكا قادة وحان بانينا يا صومالي قرنا قرقا يوتك عسكريات هران هاي مركا مقشي بدي Soomaaliya waa la kiriyay labaad maxaad inta ma seexan xalo dhandayga ku soo jeeda shalay sidoo kale waa soo socday Soomaali garan marka dareenkaaga maanta ka waran dareenkayga maanta waa faraxsana maadaama oo Soomaali isu soo baxdo garbeyga ay dhalinyaradii ay taagan yihiin anaana horkacay dhalinyarada ana horkacay shacabka Soomaaliyeed maxaa ku baaqaysaa ha noolaado shacabka Soomaaliyeed ha noolaado ha jiro ha joogo